لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإبراهيم حاج أحمد walaalyaal waxaan halkaan idinkugu soo gudbinaa insha allah qiso aada u xanuun badan. sidaan ayay ku bilaabanaysaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar ninkii qabay u yeertay. waxay labadooda isqabeen 21 sano. waxay ku tiri walaalow maad hal maro xitaa soo booqatid haweenaydaas ama maqaayada ku casuumtid. wuu yaabay wuxuuna ku yiri haweenayday sheegaysaa. iyadoo dhoola cadaynaysa ayay ku tiri hooyo goormaan kugu dambaysay aad hooyo soo booqatid ama casho gaysid. wuxuu dhahay wallaahi waa runtaa waaba hilmaamay hooyo 20 sano maanan booqan. waa inaa hadda aan maqaayad geeyaa. telefoon ayuu u diray isla maalinkii. wuxuuna dhahay hooyo macaan. hooyadii markay maqashay codkiisii way ooysay. wiilkaygii ma fiican tahay? wax dhib miyaa jiro? caruurtii miyaa dhib soo gaareen? mise xaaska ayaa wax dhib gaaray? maanta waad isoo wacdee. wuxuu dhahay maya hooyo alxamdulilaah dhammaanteen waynu fiicannahay. waxaan kuu soo wacay hooyo ka waran haddii aan caawa israacno. hooyo waxaan rabaa inaan maqaayad isu raacno oo isla cashayno. maxaad ka qabtaa? waxay tiri noloshayda saan u farxay maantay ma malaysan kartid wiilkaygiiyow. diyaar baan nahay caawa inaan kuu raaco maqaayada ayay ku tiri iyadoo aad iyo aad u faraxsan. wuxuu dhahay caawa ayaan ku soo marayaa saacadda markay tahay xilligaas. haye ayay ku dhahday iyadina. wuxuu dhahay markii aan soo gaaray gurigii hooyo deganayd waxaan arkay iyadooba diyaar ah oo albaabka taagan oo i sugaysa. gaariga soo galayaan ku dhahay yaa allah hooyo aad iyo aad bay u faraxsaneed. iyadoo aada u qoslayso oo faraxsan ayay soo gashay gaarigii. muddo 20 sano ah iswanan arkin. waxayna igu tiri wiilkaygiiow farxadda maanta aan faraxsanahay ma malaysan kartid. ma jiraan cid aanan u sheegin inaad maanta casho igu wadaysid. dhammaan ehelka qaraabada iyo dariskaba kulli waan u sheegay inaad maanta i wadaysid. kulligoodna waxay iga sugayaan akhbaarta markaan soo laabto. wuxuu dhahay markaan maqaayada gaarnay waxaan bilownay inaan ka sheegaysano yaraantaydii iyo sidaan ahaan jiray. waxaana aada ula yaabay markay ii sheegtay dharka ay xiran tahay inuu yahay dharkii ugu dambeeyey ee aabbahay u gaday intuusan dhiman 19 sano ka hor. ilaa waagaas maysan gashanin meel ayayna dhigatay. farxadda maanta awgeed ayay u soo xiratay. waxay noo ahayd maalmo la soo maro maalintii nagu farxad badnayd aan isla qaadanay hooyo. markaan guriga ku soo laabanay ayaan ku dhahay hooyo ka waran haddii maalin kale maqaayad ku geeyo. intay farxaday ayay ku tiri hooyo hay wiilkaygiiyo laakiin markaan anigaa bixinayo lacagta cashada. haye ayay ku dhahay wuuna ka tegay. wuxuu yidhi maalmo kadib waxaan ku mashquulay shaqadii aan ka shaqayn jiray iyo howlo badan oo adduunyo ah. intaasna hooyo way sugaysay oo waxay islahayd talow goormuu ku soo wacaya oo israacaysaan. sugitaankayga ku dheeraaday hooyo wayna xanuunsatay.
xanuunkii ayaa ku siyaaday hooyo, anigana intaas kama warqabin oo waxaan ku mashquulsanaa shaqadaydii. hooyo xanuunkii ayay u dhimatay, mana noo suurtoobin inaan mar labaad isku raacno maqaayadii. maalmo kadib waxaa isoo wacay nin, wuxuu idhahay teleefoonka hebel miyaa leh? waxaan ku dhahay haa waa isagii. wuxuu igu dhahay imow maqaayadda hebel iyo hebel. waxaan weydiiyey sababta, wuxuuna igu dhahay adiga iyo xaaskaaga waxaa laydinka bixiyey casho hal habeen ah, waxaana ku qorantihiin habeenkaas ee imaada, lacagtiina waa laydinka bixiyey. waan yaabay, waxaan dhahay haye insha allah waa imaadaynaa. maqaayadii markaan aaday waxaa la ii dhiibay warqad ay ku qoran tahay in hooyaday ay bixisay lacagta cashada. warqadda waxaa ku qornayd, wiilkaygiiow waan ogahay inaan soo xaadiri karin maqaayadda si aan kula casheeyo. waxaan lahayn ballan aan iskula cashayno labadeenna, sidaan kaaga ballan qaadayna anigaa bixinayo lacagta cashada, laakiin maadaama aan adduunka joogin waxaan geliyay booskayga xaaskaaga. wuxuu dhahay warqadaas markaan akhriyey aad baan u ooyey. aaway jacaylkii hooyo, aaway baarnimadii hooyo. markaan yara ayay soo barbaarisay, markaan weynaadayna waan ka dheeraaday oo waxaan ku mashquulay adduunyo iyo shaqo. laa ilaaha ila allah. ilaahu noo dambi dhaaf. walaal, nafsadaada weydii, goormee kugu dambaysay aad wacdid waalidkaaga? goormee kugu dambaysay oo aad booqato waalidkaaga? laga yaabo inaad qurbaha joogtid, laga yaabo inaad Ameerika iyo Yurub joogtid 10 sano ama 20 sano, intaasna aad weliga waalidkaaga oo Afrika joogo aadan soo booqanin. allah noo dambi dhaaf dhammaanteen, waalidiinteennana inta nool iyo inta dhimatayna jannatul firdaws al-a'laa ka waraabi insha allah. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.